waa dagaalyahano ku dagaalamaya dhulka hoostiisa iyo oogadiisa kore. waa qaab weerar oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa. waxay qaadayaan weerarro gaadmo ah, isla ilgibirsigaasina waa ay qarsoomayaan. dagaalyahanada Xamaas waxay adeegsanayaan farsamooyin dhowr ah oo ay kaga hortagayaan ciidanka Israa'iil ee duulaanka ah, kuwaasi oo xilligan ay ku adkaatay in horumar xooggan ay ka sameeyaan ku dagaalanka magaalada gudaheeda. warbixintan waxa aan idinku wadaagi doonaa 4 qaab oo ka mid ah taatikooyinka ama farsamooyinka dagaalka ee Xamaas ay adeegsanayso, kuwaasi oo ay kaga hortagayaan ciidanka Israa'iil. qaabka koobaad waa ku dhufo oo ka dhaqaaq. qaab dagaaleedka noocan ah oo carabtu ay ugu yeedho idrib wakhtafi waa nooc dagaal oo sida ka muuqata magaca labada erey ka kooban si degdeg u dhacaya. dagaalyahanada iska caabinta waxa ay ka soo baxayaan marino dhulka hoostiisa ah iyo waliba guryaha burbursan iyaga oo fulinaya weerarro gaadmo ah oo waqtigooda aad loo jaangooyay. waxa ay gantaaloola beegsanayaan taangiyada dagaalka ee Israa'iil, isla ilbiriqsigaasi waa la waayayaa meel ay mareen. xitaa diyaaradaha aan cidi wadin iyo kuwa qumaatiga u kaca waxay awoodi waayeen in ay fashiliyaan qaab dagaaleedka noocan ah. taatikada noocan ah waxa loo bixiyay ladqa. saraakiil ka tirsan ciidamada Israa'iil oo magacyadooda qariyay ayaa waxay u sheegeen wargeys arrintani ka faalooday in farsamada dagaal ee noocan ah ay ula muuqato inay la dagaalamayaan dadka imanaya duni kale. waxay ugu yeedheen in uu yahay dagaal ilbaxnimo dagaalan ah oo ciidankooda ku adkaatay in ay wax ka qabtaan. xeeldheerayaasha dagaalku waxay dhowr jeer hore uga digeen ku dagaalanka magaalada gudaheeda in uu iskiisu yahay dagaal kale. nooca labaad waa waxay carabtu u bixisay masaafatu sifir ama fogaanta eberka ah. waa nooc ka mid ah farsamooyinka dagaalka ee Xamaas adeegsanaysay ilaa laga soo bilaabo weerarkii duufaanta Aqsa ee bishii la soo dhaafay ay ku qaaday Israa'iil. farsamada dagaal ee noocana waxa hindisay Camaad Caqil oo ka mid ah hoggaanka dhaqdhaqaaqa Xamaas. farsamada military waxa ay dagaalyahanadu u adeegsadaan marka la isku haleelo dhismayaasha magaalada gudaheeda ah ama marka ay labada ciidan si dhow isugu muuqdaan. qaab dagaaleedka noocan ah ayaa kooxdu adeegsatay intii lagu guda jiray dagaalka ka socda gudaha magaalada Gaza. waa nooc dagaalyahanadu ay fogaan ka yar 50 ilaa 100 mitir u jirsanayaan taangiyada dagaalka ee Israa'iil, isla markaana weerar qorsheysan ay ku fulinayaan. waa caqabad kale oo ciidanka Israa'iil ka haysata in ay xakameeyaan ama ay wax ka qabtaan, gaar ahaan marka ay noqoto ku dagaalanka wadooyinka ciriiriga ah iyo goobaha aadka loogu badan yahay. hal mar ka badan ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ka digay farsamooyin dagaal oo ay adeegsan karto Xamaas markasta, kuwaasi oo halis gelin kara ciidanka Israa'iil. waxa uu Netanyahu ku waaniyay in uu wax ka barto casharadii uu Mareykanku kala kulmay magaalooyinka Mosul iyo Fallujah ee dalka Ciraaq. nooca saddexaad waa bartilmaameedka khiyaanada ah. waa qaab ka mid ah farsamooyinka dagaal ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ay kala hortagtay ciidamada duulaanka ku ah marinka Gaza iyo dhulka Falastiiniyiinta. qaabka noocan ah ayaa waxa loo bixiyay bartilmaameedka khiyaanada ah ama tadliil istiraatiiji. sida ay dhigayso qaacidada militarigu, dagaalku waa khiyaano. sidaas daraadeed dagaalyahanka waxa ku waajib ah inuu adeegsado farsamo kasta oo khiyaano ah si uu uga hortago ciidamada cadowga. isgaarsiinta ciidanka dhaqdhaqaaqa iyo adeegsiga marinada dhulka hoostiisa ah waa kuwo aanay weli maaro u helin ciidanka Israa'iil oo isu yaqaana naanaysta ciidan aan weligii la jabin. weerarkii loo bixiyay duufaanta Aqsa waxay si rasmi ah banaanka u keentay sida uu u liito sirdoonka Israa'iil oo hore uga mid ahaa kuwa dunida ugu horumarsan. mukhaabaraadka Tel Aviv ayaa waxa ay tahli kari waayeen wax ka qabashada tahriibinka hubka iyo saanadaha kale ee ciidanka kasakow in ay xakameeyaan kuwa lagu farsameeyo gudaha marinka Gaza. taasi waxa ay ciidanka Xamaas u sahashay in ay fuliyaan weerarro aanay ka warhelin sirdoonka Israa'iil oo ay xilli dambe ku baraarugaan. nooca afraad uguna dambeeya waa garamarista nidaamka difaacyada ka hortaga gantaalaha ee Israa'iil. waa nidaam kale oo ka mid ah farsamooyinka dagaalka. noocan dagaalka ayaa waxa uu yahay weerarro loo adeegsanayo gantaalo lagu garaaco Israa'iil iyada oo la baalmarayo nidaamka difaacyada gantaalaha ka hortaga oo Israa'iil ay horumar ka samaysay. waxa uu dambeeyay duqeyn ay Xamaas maalmo ka hor ka geysatay magaalo la yiraahdo Rishon LeZion oo u dhow magaalada Tel Aviv. intii lagu guda jiray weerarkii duufaanta Aqsa waxay Xamaas ku garaacday Israa'iil in ka badan 5,000 oo gantaal, kuwaasi oo inta badan nidaamka difaacyadu ay qabteen. laakiin gantaalkan ku habsaday magaaladan ayaa waxa uu garab maray nidaamka difaacyada ee Israa'iil. arrintan waxa loo arkaa hoos u dhac ku yimid nidaamkaasi, si la mid ah mukhaabaraadka Israa'iil oo iyaguna hoos u dhacay. wargeyska la yiraahdo Bloomberg oo ka faalloonaya dhacdada tan ayaa waxa uu ku tilmaamay in isku halaynta nidaamka difaacyada ka hortaga gantaalaha ee Israa'iil ay hore u ahayd 90%, hadda se uu hoos u dhac ku yimid isla markaana ay marayso 80%.
taasina waxaa loo arkaa in ay cabsi gelin karto magaalooyin kale oo Israa'iil ka mid ah haddii ay sii socdaan weerarada gantaalaha ee Xamaas. dhacdo kalena waa weerarka gantaalaha oo ay wax ka beddeshay Xamaas. waxay la soo baxday farsamo ah in gantaallo tiro badan lagu weeraro hal goob si istaba joog ah, taasi oo keentay suurtagalnimada in nidaamka difaacyada ee Israa'iil uu xakamayn kari waayo dhammaan weerarada gantaalaha loo adeegsaday. ugu dambeyntiina farsamooyinka ay Xamaas kaga hortagayaan ciidanka duulaanka ee Israa'iil waa taatikooyin la tijaabiyey oo ay guulo kaga soo hooyeen furimaha dagaalka muddooyinkii la soo dhaafay ay Yuhuuddu iclaamisay ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta.